Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan gelaynaa qeybteeni labaad ee English dialogue. Dialoguegaas oo ah conversation. Cashirka hore waxaan kusoo qaadanay informal, formal. Haddana maanta cashirka waxaan ku qaadanaynaa asagoo ah qaab informal ah. So formalka waxaan dhahnay inuu yahay mid laba qof ama saddex qof oo kala darajo sareyso ama kala xishmad mudan ay yihiin. Way kala yihiin dadka markay isku da' yihiin iyo dadka markay kala darajo sareeyaan kala da' weyn yihiin way kala duwan tahay. Laba qof oo isku da' ama saaxiibo ama isla soo koray waxay adeegsan karaan luqad informal ah. Laakiin macallin iyo ardaygiisa waxay adeegsanayaan waxa la yiraahdo formal. So informal greetings and farewells. Informal greetings and farewells. Haddaan af Soomaali ka dhigo informal greetings and farewells. Tusaale kale maxaan ka dhigaa informal greetings and farewells hadaan dhaho kale waxaan u dhigi karaa Allahu musta'an sometimes waxyaabo waxa la adeegsanaa la yiraahdaa slang. Waa slang or waxa weeye uncomfortable words la adeegsanayaa. Laakiin formal markay tahay waxa weeye waxa la adeegsanaya ereyo appropriate ama ku habboon ama toos ah. Kan laakiin waxyaabo qalqalooca ayaa ku jiri doona. Waan arki doonaa. Hadda ha mogaan cashirka weli muusan bilaabanin. So farewell markaan dhaho farewell micnaheeda waxay noqon kartaa wish or wishes on parting ama departure or retirement ay noqon kartaa Australian language marka isticmaalo. Sometimes farewell waxaa lahaa an act of packing or making someone's departure. Qof kaasi tagay sagootintiisa oo kale is called farewell. Okay. Cashirka marka maanta wuxuu u dhaxay conversationka laba qof. Wuxuu u dhaxay Xafsa iyo Fatma. Aragna wuxuu ku bilaaban doonaa. Xafsa waxay tiri hi Fatma. Hi Fatma. Darrata cashirkan qaadanaynay formalka waxaan ku bilaabnay good morning, good evening. Waxyaaban adeegsanayna waa formal. Xishmad laakiin kan hi waa iska caadi ciyaalka xaafadda oo kale. Hi Fatma. How is it going? How is it going? Hi Fatma. Hi Fatma. Hi qof buu garan karaa. Seetahay Fatma ama gacanta loo taag hi Fatma. How is it going? qaab noocay wax u socdaan. Maxaa isku ka dhacay camal? How is it going? Laakiin ma dhihin how are you? How are you waa formal. How are you doing waa formal. Laakiin maxay dhahday how is it going? Maxaa isku ka dhacay? Qaab noocay wax u socdaan. Say wax u jiraan camal. Fatma waxay tiri fine. Thanks. Waan fiicanahay. Mahadsanid. And you adigana? Then Hafsa said waxay tiri Hafsa just fine. Just fine. Fine may dhihin just fine qof xanaaqsan oo kale ama qof murugaysan oo kale just fine. Waan iska fiicanahay. So just fine waxaan ku turjumi karaa waan iska fiicanahay, waan iska roonahay. Where are you off to? Xageebad u socotaa ama xageebad ku jeedaa? Off marka la yiraahdo waa qof marka off qaadan ama baxayo. So where xagee are you adiga off to aad ku jeedaa? Then Fatma said to the library. To the library waxaan ku jeedaa library-ga ama meesha buugaagta lagu akhristo. It's called library. Maktabadda, that's it. So waxay tiri marka I have got a history exam next week and I need to start studying. I have got waxaan leeyahay history exam oo taariikhi ah next week usbuuc soo socdo and need waxaan u baahanahay to start inaan bilaabo studying akhrintiisa ama diyaarintiisa. waan ka xumaa camal madaxa xanuuna markaan imtixaankan qof inuu ka xun yahay camal. Then Hafsa said oh no waan ka xumahay oh no. Well okay waxay tiri well way wanaagsan tahay. I'll see you later then. Waxay tiri I'll see you later then. Waxaan ku arkayaa hadhow dambe. I'll see you later then. Waxaan ku arkayaa hadhow dambe. I'll see you later then. Good luck. Nasiib wanaagsan ama nasiib wacan. Waxay tiri I'll see you later. Hadhow dambe aan ku arkayaa. I'll see you later then. Hadhow dambe aan is arkayna. Good luck. nasiib wacan. Good luck. Then waxay tiri thanks. See you later. Hadhow dambe ayaan ku arki doonaa. Thanks. See you later. Thanks. Waa mahadsan tahay. See you later. Hadhow dambe ayaan is arki doonaa. Ka raali noqda canug yara ii soo galay. Micnaha oohinta halkaas ka timid.
tani kulantada maxuusal waxaa idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo cashirkeena dambe kan xiga inta ka gaarino. Thank you.